إنا لله وإنا إليه راجعون. وحعاوي سوق في جريدة ولا شيء. آمنة محمد عبدي كوجريو في قبل كيران بلد وين runtii waxa xaqiiqo ah aamina inay ahayd gabar karti badan daacad ah baarlamaanka gabdhaha tilmaaman ee rushaaga ah ku jirta tacsi kadib ehelkeena anagoo ah waxaan shaki weyn ka qabnaa in aamino geerideeda aysan ahayn geeri si fudud ku timid waa geeri la qorsheeyay laga fakaray laga shaqeeyay dad iskaashadayna ay fuliyeen shakigaasaan ugu jira sidoo kale markii aan la tashanay qoboro yaqaana amniga iyo siyaasadda saraakiil janano waxay tuhun badan ka muujiyeen dhibaatadii maanta airportka muqdisho ka dhacday inay ahayd dhibaato looga bedeshay nimanka khawaarijta ah dilka aamina maxamed cabdi oo ah laba askari oo fal fuliya oo jagboontiya si nabad ah ku dhaafa ayaan gudaha idin gelinaynaa si danihiina ugu qabsataan laakiin bedelkeeda waxaad khaarijinaysaan aamina maxamed cabdi aamino waqti ay lahayd kamana horumar lahayn kamana dib mar lahayn laakiin shakiga nagu jiro boqolkiiba boqol oo dad badan oo wax fahmi kara isku raaceen arrinta aamino ay u dhimatay ayaa sababteeda tahay qadiyadii ikraan tahliil ay muddo dheer daba taagneed sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed maanta ha ogaat dilalka dhacaya boqolkiiba 80 kamid ah waa dilal siyaabo kala duwan iyo iimaan la'aan iyo kursi jacayl ku qatuma madaxweynaha mudxeleedkiisa dhamaaday ee farmaajo walaalayaal waad arkaysaan mas'uuliyaddii dalkan loo dhaariyay ayuu gudan waayay sidoo kale cid walba ee isaga ka aragti duwan ee su'aal ka keenta dhib dhacay ayaa xalkeeda wuxuu noqdaa lagu gabagabeeyaa waxa aamina ku dhacay oo kale aamina hadday dhimatay kumanaan ruux oo Soomaaliyeed dadkeeda marka laga soo tago ayaa qalbigeeda ay ku dhex nool yihiin qalbiyadooda ku dhex nool yihiin waxaan ilaahay ka rajaynayaa iyadana inuu dambi dhaaf ugu dhigo qaatumadeedan ilaahay wuu hagaajiyay dunuub walba ay lahaydna dusha wuxuu ka saaray ciddii sababteeda yeelatay adduunkan maanta la joogana cadaaladda kama dhammaanin dad Soomaaliyeed mas'uuliyiin ah xil hore u qabtay qaban doona ayaa dalkan ilaahay siiyay waxay ka mid noqonaysaa in lagu xisaabtamo dhibaatooyinkii dhacay qayb ka mid ah ilaahay waxaan ka rajaynayaa kuwa dambiga geystay nooc walba yihiin ilaahay inuu ceebtooda bannaanka keeno sidoo kale shabaab waa khawaarij dal iyo dad iyo diin marhaban kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulkana way ka been sheegeen weliba waxay isku beddeleen organization lala shaqaysan karo oo waxaan ii sameey waxaana kuu sameynaa la dhihi karo hubaal way sheegan doonaan laakiin macno ma sameynayso sheegashadooda mana ummadda Soomaaliyeedna ma qancin doonto xildhibaano fara badanaa lagu doortay madax iyo ka sarreysa iyada ayaa tagay wax kaligeed ku dhacay oo lala beegsaday wax ma ahan muxuu ahaa ku taragal ah waaye wax qadar ilaahay ka suko wax la abaabulo waaye allahu naxariisto ilaahayna waxaan rajaynayaa cadaaladda inuu u heeliyo una heelin doono sifaha ilaahayna cadaaladdu jecel yahay cadaaladdu u heeliyaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh